السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت وناكسن مالا وناكسن كسر هذا 10 كلمات وحكسب سنة هاي تون كسالود قيبت مراجعة على فاينل إكسام كا أوفيس كلو يقانو إكسل كا إن شاء الله أمانتا 10 كلمات كسب سنة هاي هل كان وحنا قرن حوالي تون قلب أما تون سالود قلب كوره حوالي إكسل مركان جونو قلب كيسي كوره حوالي مركا مساج وريسو what to change in about the show the text font size and color qoraalka fartiisa cabirkiisa iyo colorkiisa oo midabkiisa about the show waxaan soo kicinayna marka horeyso excel keena waxaan doonaynaa marka ugu horeyso qoraal baynu qoraynaa then kadib qoraalkaasi colorkiisa iyo fontigiisa iyo size-kiisa aynu bedelaynaa so waxaan qoranayaa magacaas ayaan qorayaa then kadib magaca marka sidaan aan qoro so then kaliya aan ku leeyahay waxaan tagay qaybta loo yaqaan fontisyada haddii su'aalaha ay ku noqon weyso mararka waxa laga yaabaa in magacan uu markaasi farta qoraalkaas isbedeli weyso su'aalahan sida markaan u qoro control A haddaan yiraahdo no aan sidaan left aan qabto sidaan u highlight gareeyo oo halkaas aniga aan tago sidaasi waan ku bedeli karaa okay sidaasi waan ku bedeli karaa farta misana adigoo highlight gareynin oo waxa way aan select gareynin ayaad markaa qorto meelaha kale aad ku dhufanaysaa meelaha banaan iska imaanaysa dib ugu laabanaysaa qoraalkii dan kadib markaa kale aad ku dhahdo waxaad tagaysaa meeshii fontisyada tagaysaa sidoo kale farta noocaas aad ku bedeli kartaa size-ka sidoo kale aad ku bedeli kartaa colorka fartana waxa way sidoo kale aad ku bedeli kartaa waxaynu gudbaynaa qodobka xiga aynu gudbaynaa qodobkeeni xiga waxa way waa addition means waxaynu anagoo excelka isticmaalayno aynu isku daynaa inaynu xisaabayno isku darno ama lacag aan isku darno hadda halkan waxay qoran $90 waxay qoran lagu daray $40 sida ayaan ku soo saari karaa wadarta guud markaasi labada tiro hadii la isku daro okay qaybta hoose imaaw ama halkaas natiijada meesha doonta aad ka soo saaran kartaa soo halka marka joogto waxa leeyahay equal marka uu horeyso hadaan equal aadan ka bilaabin tay wax ku soo baxay oo markaasi cadeyna misana natiijo ma laha so equal marka dhahdo waxa dhigi kartaa sum marka dhahdo bracket aad furaysa then kadib halkaas ay tagaysaa lacagta kooda tagaysaa dhinaca geeska tag ama dhinaca geeska tag nooca marka isku bedesho filarta left qabo drag ku sameeyo soo jiid okay then kadib enter dhe okay di 9 lagu daro waxa weeye $40 lacag totalka mise wadarta guud waxa weeye waa $130 si kale aan way kale aan ku soo saarayna oo ah inaynu equal aan dhahno marka equal aan dhahno 9 ka kale aan ku leenahay calaamad lagu daray plus aan isticmaalna lagu daray ayaan leenahay then kadibna 40 ka ayaan kale ku leenahay qaybta hoose kadibna enter aan leenahay labadaas way waad ku soo saari kartaa insha Allah wayna ka soconaynaa qodobka isaguna qodob kale waa subtraction means waxa weeye inay hisaabaan kala jarno su'aalaha halkan waxay noo qor hadda su'aalahan 9 ama $80 ayaa waxaan doonayaa inaan ka jaro waxa loo yaqaan $50 sidee markaas natiijo guud aan ku soo saarayaa waxaad haystaa $80 waxaad doonaysaa inaad ka jarto waxa weeye $50 inaad ka jarto waxa leedahay marka horeyso equal marka dhahdo 80 ka kale ku dhe laga jaray dhe marka then kadibna tirada hoose kale ku dhe kadibna waxa weeye enter uma taabanaysa okay sidaasi weegaas ugu saaran markaas aad ku soo saari kartaa natiijada guud wadarta guud aad ku soo saari kartaa okay haddiinu ka socono qaybta ayaduna waxaynu gudbaynaa qaybta loo yaqaan waxa weeye division means waa qaybta markaas qaybida aynu marka aynu gudbaynaa waxaynu rabnaa marka inaynu lacag gaarayso $50 aynu u qaybino 5 qof inaan u qaybino waxa weeye lacagtan waa $50 waxa loo qaybinaya 5 qof ayaa loo qaybinaya equal leenahay so waxaan ku dhufanaynaa tirada sare ee lacagta kale marka aad ku dhahdo tay waxa leedahay marka loo qaybiyay waxaan leedahay kadibna kale marka ku dhahdo waxa leedahay loo qaybiyay tirada hoose kale ku dhahdan kadibna enter taabo sidaas ayaa markaasi wadarta guud ayaduna ay kugu soo bixaysaa aad qorki kartaa marka hadaan ku celino qaybida $10 ay waxaad u qaybinaysaa laba qof equal baa leedahay kadib 10 kale ku dhe loo qaybiyo calaamad isticmaal tirada hoose kale ku dhadan kadibna enter taabo sidaas ay markaasi aad ku soo saari kartaa waxa loo yaqaano okay natiijada markaas aad soo saarayso hadii tirada ay tahay misana xisaabta aad xalinaysa ay tahay markaasi misana xisaabta aad xalinaysa markaasi ay tahay division
waynu ka soconaynaa insha Allah qodobka waxaanu gudbaynaa qodobka ku soo xigaynu gudbaynaa qodobkan waxa loo yaqaan waa total wadarta guud inaad soo saari karto totalka means waxa wax kale ma aha in markaas lacagtaada aad isku darsato in markaas lacagta totalka aad soo saarto su'aal ahaan hadda waxaan rabaa inaan soo saaro waxa loo yaqaano okay waxaan rabaa automation waxaan ku qoranayaa names inta aan ku qoranayaa English inta aan ku qoranayaa Arabic okay halkan waxaan doonayaa markii aan ku qorto waxa loo yaqaano total inta aan ku qoranayaa Tarbiya inta aan ku qoranayaa total halkaas waxaan doonayaa inaan ku qorto waxa loo yaqaano percentage halkan aan qoranayaa percentage ayaan ku qoranayaa Ahmed Hussein isaga unba ku arday isagana ku bisanaya oo sii badsanaya okay ardayda English waxay keeneen 9 so marka aan soo saari totalka waxaan leeyahay waxaan tagayaa marka qaybta totalka waxaan rabaa marka wadarta guud ee maadooyinka inaan isku dardaro ardaygan la yiraahdo Ahmed Zain English wuxuu keenay 9 okay Tarbiyana wuxuu keenay 67 Arabina wuxuu keenay waxa loo yaqaano 45 dhibcood so waxaan rabaa marka totalka maadooyinkiisa marka isku darado inaan soo saaro inta la gaarin percentage-ka waxaan leeyahay marka horeyso equal then waxaan leeyahay 9 tirada ugu horeyso ee maadooyinkooda ku dhufanaya kila markaan ku lagu daray aan leeyahay okay 67 waxaan leeyahay hadana lagu daray 45 then kadib enter ayaan taabanayaa okay kadib marka ardaygan sidaan u soo saarto ay dhinacan geeska tagaysan nooca marka isku bedesho flarta left qabo qaybta hoose drag ugu sameeyo soo jeed okay sidaan ayaan ku xisaabinay waxa way guud ahaan ardayda oo dhan totalkooda percentage markaan soo saarayno waxaan u maleynaa qodobka labaad inuu qodob kale inuu yahay waa qodobka lixaad waa percentage qaabka loo soo saaro aan isdarno haddii total haysto percentage waa soo saari kartaa laakiin haddii total aadan haysan percentage ma soo saari kartid waxaan leenahay equal totalka haysano waa 200 iyo waxa way equal marka aan totalka aan ku dhufanayna tirada totalka ee ardaygu aan haysano waa 202 waxaan leenahay loo qaybiyay marka loo qaybiyay aan dhahno loo qaybiyay markaan dhahno means waxa way loo qaybiyay markaan dhahno waxaan eegaynaa maadooyinka yihiin waa 1 2 3 maadaama yihiin 300 baad u qaybinaysaa kadib enter aad leeyahay enter aad markaas aad leedahay haddii 0 point ay ku soo baxaan waxaas ay ku soo baxaan kila aad ku leedahay then waxaad tagaysaa qaybta sare ee percentage-ka aad tagaysaa okay kadib sida ay u saxaysaa kabaadana drag ku sameynaysaa halka ayaad markaas qabanaysaa qaybta hoose ayaa sida ugu jiidaysaa insha Allah waynu ka soconaynaa qodobka isagana waxaynu galeynaa qodobka toddobaad oo ah markaasi maximum waxa weeye inaad soo saarto lacagta markaasi ugu yar inaad soo saarto ayaa markaasi laga doonayaa tusaale ahaan halkan waxay u qoran waxa loo yaqaano 9 intana waxay u qoran 8 intana waxay u qoran okay inta waxay u qoran 9 okay 8 78 waxaan doonayaa lacagahan boxedan ku jiro lacagta ugu yar inaan soo saaro su'aal ahaan marka waxaan leeyahay marka horeyso equal marka aan dhaho max no afwan waxa weeye inaan soo saarno waxaan rabnaa lacagta ugu badan inaan soo saarno waa maximum ka marka inaan soo saarno rabnaa marka horeyso maximum number markaan soo saarayno equal max aan leenahay equal marka max markaan ahna bracket ka furayna waxaan tagaynaa qaybta sare dhinaca geeska ayaan tagaynaa nooca marka flarta isku bedesho left qabanaysa drag ku soo sameynaysa number ugu dambeeya keenaysa kadib enter ay taabanaysa hadda waxa way meeshan lacagta ugu badan waxa way ama tirada cadadka lacagta waxa way markaas ugu badan okay waxa way waa 9 okay qodobka sidaas aad markaas ku soo saaraysa waynu ka gudbaynaa qodobka xiga isagana waa minimum waxa way markaas lacagta ugu yar marka inaad soo saarto sidaad ku soo saaraysa lacagta ugu yar hada lacagan qoranaya sidoo kale lacaga ay qoran waxaan doonayaa lacagta ugu yar markaas inaan soo saaro
waxaan leenahay equal markaan dhahnana waxaan leenahay mean aan leenahay haddii aad dhihi jirnay max haddana waxaan leenahay mean then bracket ka furaysaa qayb sare tagaysaa dhinaca geeska waliba left ay qabanaysaa dragging ku sameynaysaa qayb numberka hoose aad keenaysaa dadka tibinta taabanaysaa so marka hadda lacagta ugu badan aan dhahay lacagta ugu yar waxa weeye waa $3 weey ama 3 okay tirada ugu yar meesha ku jirto okay sidaas aad ku soo saaraysaa marka qaybtan marka soo saarayso waa inaad dhahdo marka horeyso equal max ka tibna bracket aad furtaa bracket marka furtaana halkaas waa inaad tagtaa drag ku soo sameeysaa sidoo kale halkan markaan joogno qaybtan equal aan leenahay sidoo kale min aan leenahay then ka tibna bracket ka furayna kabaad inta tagayna halkaas markaan tagnana drag ku soo sameeyna sidan ayaa markaas aan soo jiidayna oo inta aan dhahayna okay waynu ka gudbaynaa su'aasha waxaynu gudbaynaa su'aasha xigta marka aynu gudbaynaa inshallah su'aasha xigta waxay noqonaysaa waxa loo yaqaano fill color behind the selected text ina markaasi qoraal aad ku buuxi inaad qoraalka markaasi color aad ku shubto su'aalahan hadda natiijada soo saari waxaan soo saaray su'aalahan ka soo qaad hadda percentage-ka ardaygan uu haysto percentage-ka ardaygan uu haysto waa 67% waxaan rabaa color inaan ku shubo halkan ayaan tagayaa qaybtan oo font color-ka dhinaca geeska ee ka dambeysay ayaan tagayaa geeskana furayaa color-ka aniga aan doono ayaan ku shubayaa sidoo kale ardaygan isagana color ayaan ugu shubayaa aan nooc kale ah isagana sidoo kale ardaygan kale markaa ku dhawaana natiijada halkaas yaalo kadib color-ka adiga jeceshahay ay sidaas ugu shubaysaa waa inta uun ma dhib badna su'aasha kale ayadana waxay tahay waa background picture ina markaasi sawir markaasi background aad u yeesho okay adigoo isticmaalaya excel kaagi aad si toos ah u isticmaalay ay wax soo gelinaysaa sawir adiga leedahay misana sawir kale waan tagaynaa page layout kadibna waxaan ka dooranaynaa meesha loo yaqaano qaybta loo yaqaano background markaan ka sii doornana waxa weeye sawirada meesha ku jiraan ayaynu raadinaynaa hadda qaybtan sabarka ayaynu ugu jiraan kabacdi hadda midkan ayaynu markaan ka dhiganaynaa aan dooranaynaa sawirku dadka tibin sartu baynu leenahay okay sida ayuu markaas sidaas ayaa markaasi aan ku soo gelinay sawirkii aynu doonaynay marka tuurinana waa delete background leenahay marka aad ku laato background page layout tag markuu wareyso inka kadib background ka sii tag dooro sawirka adiga jeceshahay kadibna insert sidaas ayuu markaas sawirku ku soo geliyaa so waynu ka gudbaynaa inshallah su'aashan waxaan u maleynayaa inay ahayd marka su'aasha ugu dambeysay qaybta muraajacada excel keena so waxaan rajeynayaa inshallah inaad fahmi doontiin waxaan leeyahay marka hormar waxaan okay iyo nasiib wanaagsan okay thank you very much waana mar kale iyo 10 keena xiga marka PowerPoint-ga